Assalaamu calaykum. Waxyaalaha ka dhaca sabankan hadda joogno waa kuwo runtii aad loola yaabo haddana si fudud inagu dhaafa xawaaraynta waqtiga awgeed. Tusaale ahaan dhacdooyinka qariibka ah ee ka dhaca dunida dacaladeeda maalin walba waxaad arkaysaa dhacdo cusub oo aan horey caalamka looga arag. Dabada isbuuc kadib waxaad arkaysaa wixii oo la iska ilaaway sababtuna ay tahay waxyaalaha kowka ah waa aalad social media noocyadeeda kala duwan ama baraha bulshada ku kulanto. runtii wax kasta oo weynaa waxay ka dhigtay wax yar, wax kasta oo yaraana wax weyn ayay ka dhigtay, iyo waqtiga sida xawaaraha leh u soconaya. maxaa yeelay waqtiyadii hore aysan jirin aaladan haddii wax ka dhacaan dunida, dhacdadaas waxa la sii falanqeyn jiray ama laga sheekeyn jiray sanado ama muddooyin. haddii aan usoo gudagulno mawduuceena, waxa isbuucyadii la soo dhaafay qabsaday baraha bulshada ama meelaha bulshada ku kulanto wiil dhalinyaro ah oo dadka badidiisu qaybna si uga hadleen, qaybna aflagaadeeyeen, qayb kalena talooyin usoo jeediyeen. haddaba wiilkaas waxaa lagu magacaabaa ama ku magac baxay Socdaal Yare oo aad wada garanaysaan, oo isku dayay inuu wax abuuro ama maqaamkii uu markii hore taagnaa hore uga socdo, una tallaabsado ama u tijaabiyo bulshadiisa sida ay uga falceliyaan tallaabadaas uu dhaqaaqay. haddaba Socdaal waxa uu ku guuleystay tijaabadiisii markii iyadoo aan qiimeynay bulshada Soomaaliyeed 65% ay dhulka la galeen kana soo horjeesteen. Socdaalna galay xaalad ciriiri ah. haddaba haddii aan isbarbar dhigno dalalka kale iyo sida ay ula dhaqmaan dadka ra'yada cusub ama la yimaada, sidee doonaan ha u ekaadeen, noocay doonaan ha noqdeen, ugu horreyn ninkan aad u jeedaan waxaa lagu magacaabaa Graham B. waa nin caanka dunida dacaladeeda, ma aha dalkiisa, dunidoo dhan ayuu caan ka yahay. markaad aragto waxaad cabiranaysaa inuu ilmo yar yahay ama uu eeg yahay bini aadamka Allah subxaanahu wa tacaala siiyey abuurta ka duwan dad kale. waana dadka ay Soomaalidu ku sameeyeen waxa loo yaqaano let down ama yasaan. waxaana waa haddii uu ka dhalan lahaa Soomaali inuu iska daa inuu magac yeesho, hanti yeesho, gurigiisa uusan ku ammaan heli lahayn, laakiin ma dhicin. haddaba su-aashu waxay tahay yaa gaarsiiyey heerkaas? waxa gaarsiiyey dalkiisa, shacabkiisa, dhalinyaradiisa. waana tusaale inoogu filan in bulshada markasta tahay ta laga shidaal qaadanayo. hadday ku garab istaagaanna aad noqonayso qof horumarsan, hadday ku liidaanna aad dhulka galayso. innagana Soomaali ahaan ay nagu jiraan dad aad u liita caqli ahaan, una baahan inay dib ugu soo laabtaan, dib ka soo bilaabaan nolosha iyo dhaqankeedaba. haddaba talada aan ugu soo jeedinayo wiilkan Socdaal Yare waxay tahay inuu markasta Ilaahay raali geliyo, Ilaahayna garab ka dhigto, kana samro tallaabadaas fashilantay. maxaa yeelay Allah wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala in Allaha maca saabiriin, Allah kuwa samra ayuu macooda yahay. walaalayaal mawduuceena maanta intaas ayuu inoogu egyahay. insha Allah mawduuca xiga intaan ku wada kulmi doono waxaan kaga tegayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.